2010kii waddanka Colombia waxaa ka dhacay daadad waaweyn oo boqolaal qoys ay ku dhafwaayeen. Fabian Vargas waa mid ka mid ah ciyaartooyda ka soo jeeda waddankaasi. Xidig ayaana ka sheekay garab istaag weyn oo uu muujiyay Lionel Messi waddanka Colombia iyo dhibaatadii daadadka ay dadku nafwaayeen. Fabian Vargas ayaa wareysi bixiyay waxa uu yiri 2010kii Colombia waxaa ka dhacay daadad waaweyn oo boqolaal qoys ay ku dhafwaayeen. Waxaana caawimaad ka dalbaday Messi si uu ii siiyo fanaanadiisa homekii awayga si aan u iibiyo kadibna lacag ugu helo si aan u caawiyo qoysaska daadadku ay dhibaateeyeen. Laakiin ciyaaran la ciyaaray Barcelona, Messi ayaa ahaa mid wax badan ka sameeyay kulanka. Dhowr jeer ayaan laaday Messi ciyaarta si aan u joojiyo, laakiin bandhigiisu wuxuu ahaa mid aad u sareeyay. Markii ay dhamaatay ciyaarta, anigoo aad u xanaaqsan ayaan galay qolka labiska. Waan iloobay inaan Messi weydiiyo funaanada oo aan ka qaato. Laakiin waxa cajiib ila noqotay Messi uu igu yimid qolka labiska wuxuuna igu yiri Fabian waxaan rabaa isaga. Waan u tagay isagoo albaabka taagan. Messi wuxuu ii soo qaaday fanaanadaha Busquets, Xavi, Iniesta, Valdés iyo isaga maaliyadiisa iyo fanaanada Adriano. Wuxuu igu yiri waa kuwan fanaanadaha maxaa kaloo ka caawiyaa. Aad ayaan u yaabay, mana filaynin in fanaanadaha oo dhan aan heli karo, kaliya waxaan sugayay isaga fanaanadiisa. Markaan guriga tagay uu soo wacay, wuxuu ii sheegay inuu diyaariyay lacag badan oo ugu talagalay shacabka daadadku dhibaateeyeen oo gaaraysa 14 milyan. Waxaan la ooyay sida Messi u naxariis badnaa iyo sida aan ugu dhaxlaaday kulanka gudihiisa. Messi waxaan ka helay gargaar bini'aadanimo ka xitaa aan ka weynay madaxda dalka Colombia. Lacagahaasi qaar waxaan ku sameynay darbiyo adag oo waaweyn sida mar kale aysan u imaan daadadka qaarna waxaan noloshooda ku soo celinay qoysaska dhibaatada ay ku dhacday. Colombia gudaheed Messi waxaa loo jecel yahay si aan loo jeclayn madaxda dalka. Messi wuxuu noo gala abaal ay adag tahay in la gudo kumanaan sano hadda soo socota. Maxaa ka baran karnaa sheekada?